xaruntan warbaahineed ee barbaarta iyo beeraha oo waxyaabaha lagu soo bandhigo xoogga lagu saaro si dadkana ay faham fiican u helaan loona dhiirigeliyo wax soo saarka beeraha ayaanu ku guda jirnaa kelmadaha iyo khudbadaha dadka halkan uga aadan in ay ka hadlaan ayaanu siin doonaa waxaan rabaa inaad iga soo dhaweysaan aasaasaha xaruntan cabdishakuur ibraahim cabdi. الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. مرتدى آدك وقيمها بدن بروفيسور هذا له قدومياش الجامعة له هيئتها له محل هذا دخاتير له معلمين له أرضي الجامعة لها كل دون هل كان مانتا نوصل الشرفي وقت يقول قيمها بدن سوق لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب قلبت وحنا كان وصلنا هاي إن bal wax yar idin ka tusino barnaamijkan warbaarta iyo beeraha oo 10 sano jirsaday waxaa la aasaasay sanadkii 2016kii waqtigan oo kale marka 10 sano waqti la eg ayaan ka soo shaqeynay wax soo saarka beeralayda deegaano kala duwan oo dalkan ah aan tagnay wax soo saarka aan ka soo warranay waxaan shidi doonaa marka qaybaha soo socda haduu Ilaahay yiraahdo documentary dheer oo 10 sano wixii aan soo qabanay ka hadli doona haduu Ilaahay yiraahdo waxaa la yiraahdaa qaran kasta waxa uu iska leeyahay codad u hadla codad waxaa jira u hadla siyaasadda waxaan la soconaa hotel jazeera iyo agaarkiisa waxa ka socda codad waxaa jira u hadla sportiska koobkii adduunka iyo wixii socdayaan si fiican uga warqabnaa codad waxaa jira u hadla ganacsatada codad waxaa jira u hadla bahda caafimaadka codad waxaa jira u hadla maxaa la yiraahdaa dhalinyarada codad u hadla haweenka codad u hadla waxbarashada gudoomiyaha midowga dugsiyada iyo waana la joogaan midowgii marka su'aasha ay barnaamijkan inuu maanta halkan aanu dabaaldegayna ay keentay waxay ahayd beeralayda Soomaaliyeed yay tahay cid inay u hadashay tahay marka munaasabada halkan aan maanta u fadhino aan ka hadlayno waxa dhaliyay su'aasha keenayna waxay ahayd in balcod loo helo dadka beeralayda oo subax kasta wax soo saarkii ku jira محل هذا وطن كان يقرن كان يقول شيء ليننا محل هذا كشقينا وحسوسات كودي عقبات بدن وجهها وحن حسوسنا بري أن جامعات كجرني معلمين تا خير الله سي واحد بدن وحياد نوجه الله إن بيرها أيين لقالها الدلك لفنا برتولي لقالك أيه معها لكن امتحان كما كان قلنا أنا ورقدها سلاسل كبوري جرني لكن بناك مركب أصوب إحنا waxaan arkaynay wax ka duwan waxaas oo dadka inay si kala u haystaan beeraha dugsiyada sare markaan ka soo baxnay 12 sano ka hor oo jaamacadaha aan bilaabaynay oo kulliyadda beeraha aan bilowgeedii aan bilownay markaan u sheegno ku dhahno war kulliyadda ku biirteen waa kulliyada beeraha markaan dhahno dadkii waxay noqonayaan inay si kala u fikiraan idaahan bal waa sidee beerihii wax soo saar iyo xisii wax loo waraabiyo ma jaamacad lagu baranaya yar saaxiibkay oo marka waxa jira liiraado Maxamed Faarax oo su'aalahaas annagana waan ugu badnaayeen ka arday ahaan marka isagana wehelkii iyo saaxiibadii iyo magaaladii iyo xaafadii iyo meel kasta laga su'aalaya kulliyadee ku biirtay jaamacadee ku biirtay maxaa la takhasuskee gashay marka wuxuu yiri markaan dhahay waxaan ku biiray kulliyadda beeraha dadkii waxay leeyihiin aniga beeraha gashay ma si loo abuuro ciyaar maxaa la yiraahdaa dhulkii iyo xilligan baranaysaa xaalka waa sidee marka inay fikradaas kale ay dadkii aaminsanaayeen waxay keentay ugu dhahay inaan ka bedelo hadalkii nooca ahaa ee aan iraado waxaan ku biiray faculty of agriculture anoo carabka ku qurxinayo markii eedooyinkii iyo maamooyinkii iyo dadkii guriga joogay aan ku dhaho waxaan ku biiray faculty of agriculture inay wax fiican u qaadanayaan laakiin markaan ku iraado beerihii aan ku biiray inay magac ahaan ay meeshaas ay dadkeena xaaladaas ay kaga sugan yihiin intaas kadib marka annaga waxaan tagnay gobolada dalka kala duwan dhulka waxaan la soconaa dhulna waa dhul wax soo saarkiisa wabiga uu ku xiran yahay oo waraabka hela dhulna waa dhul kale oo xareedda ku baxa oo roobka hela labada deegaanba waa tagnay beeralayda kala duwan aan la soo kulanay wax soo saarkooda aan ka soo sheekaynay documentary-ga si fiican loogu arki doona anaga hadda kuma sii dheeraanayno maxaa la yiraahdaa deegaanadii kala duwan aan soo aruurinay iyo xogtii aan soo aruurinay waxa ugu muhiimsaneed ee aan ka soo shaqeynay waxay ahayd inaan dadkii ehelka u ahaa مثلا waxaan ka sheekaynay abuurka waxaan ka hadalnay maxaa la yiraahdaa waraabka waxaan ka sheekaynay fertilizerka iyo isticmaalkeedii iyo sida beertii loo nafaqeyn lahaa waxaan ka sheekaynay cayayaanka iyo cudurrada beeralayda ku dhacay iyo sumaha sida ay tahay in loo buufiyo
annagoo aqoontii beeralayda dadka khibrada ah ka soo aruurinayna waxaan ka sheekeynay nabaad guurka ku yimaada carrada waxaan ka sheekeynay maxaa la yidhahdaa abaaraha waxaan ka sheekeynay isbeddelka cimilada ciwaan kasta oo la xiriira beeraha ayaan siday tahay iyo sidii muuqata uga hadalnay oo barnaamijkeena iyo barbaarta iyo beeraha laga arki karaa YouTube-kiisa iyo Facebook-kiisa iyo xataa website-keena waxaan rabaa markii inaan halkan ka sheego hadafkeennii waagii aan asaasaynay wuxuu ahaa in dadka kala duwan ee barbaarta iyo beeraha waraysiyada siiyo ama beeralayda ha noqdaan ama khubarada ha noqdaan ama ehelka dadka waa beeraha ha noqdaan xogahaas kala duwan aan soo aruurinay inaan dadkii gaarsiino jiilashii kala duwanaa waxaan qornay marka buug ka hadlaya barbaarta maxaa la yidhahdaa beeraha Soomaaliya oo qoran oo dhammaystiran oo ditorcote iyo akhyaar kale oo beeraha dadkii ehelka u ahaa ay tafaftirkiisii iyo hawshiisii ay wadaan sanadka soo socdana hadduu ilaahay raadin aan soo barin aan rajaynayno waxaan u haystaa marka buuggaas inuu noqon doono buug aad iyo aad macluumaad buuxa looga heli doono marka la fiiriyo dhinac kasta oo beeraha ah macluumaad ah in laga helayo waxaa intaas sii dheer website maanta qodobka ugu muhiimsan oo dadka intaan la eegin aan isugu yeernay ay noqonaysa waxay ahayd waxaan sameynay website barbaarta iyo beeraha ah oo muddadii 5 sano la soo dhaafay dhan aan hawshiisa ku jirnay laakiin 5 bilood ugu dambeysay aan si fiican uga shaqeyno website-kaas uu noo hirgelay waqti 5 bilood la ayuu website-kaas noo shaqeynaya xogtii kala duwanaa iyo macluumaadkii iyo artikaladii beeraha ku saabsanaa ayaa halkaas laga helaya isagana waa website la xiriira barbaarta iyo beeraha oo wax soo saarkii ka hadlaya dhaqaalihii ka hadlaya caqabadihii ka hadlaya suuqii ka hadlaya waxaasoo idin macluumaadkoodii loogu tagaayo waxaa intaas sii dheer inaan rabo inaan ugu dambeyn u mahad celiyo dad kala duwan oo ehel ah oo asxaab ah oo akhyaar ah oo maxaa la yidhahdaa mas-uuliyiin ah oo barnaamijkan intuu soo socday 10 sano taageero aad u fiican nagala qayb qaatay galabta hadduu ilaahay yidhaahdo qayb ka mid ah ayaan rabnaa inaan halkan shahaado ku guddoonsiino oo aan u mahad celinayno qayb marka waxaa jirta dalka ka maqan oo aan nala joogin oo aan rabnaa iyagan inaan halkan uga mahad celinayno hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa ka mid ah nin la yidhahdo Xuseen Faarax Cabdulle oo dalka Qatar saaxiibada jooga ka mid ah waxaa ka mid ah nin la yidhahdo Axmed Cabdiraxmaan Cabdullaahi nin la yidhahdo oo asigana hadda Canada jooga oo barbaarta iyo beeraha iyo bilowgeedii iyo shaqo fiican la soo qabtay waxaa ka mid ah nin la yidhaahdo Cabdinuur Sheekh Maxamed Cabdinuur Maxamed Xasan oo bulshada ku magac dheer oo hadda hoolka nala jooga oo aan jeclahay in bal xilligan la arki karo Cabdinuur hadda halkan soo istaagi karto waa ninka kaamirada wato waxaa jira nin kale oo la yidhaahdo Nuur Faarax Cumar oo isagana inaan hadda hoolka ka arki karna aan qiyaasayo isagana dhinacaas ayuu taagan yahay website-ka barbaarta iyo beeraha marka la fiiriyo ninka shaqadeeda iyo sideeda fiican uga qabtay oo kaligiis hawshaas waqti dheer geliyay ayuu ahaa waxaa sidoo kale ka mid ah nin la yidhahdo Maxamed Faarax oo galabta halkaan nala jooga Cabdiraxmaan Sheekh Shamsi nin la yidhahdo ayaa isagana ka mid ah oo galabta halkaan naga maqan laakiin qof kale ugu guddoomi doona shahaadadiisa waxaa kaloo ka mid ah nin la yidhaahdo Axmed Cabdiraxmaan iyo Cabdulatiif Xuseen Samatar oo ayagana saaxiibadii halkaan barnaamijka intaan soo waday khiyaartii si fiican nooga saaciiday ka mid ah ugu dambeyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo oo maxaa la yidhahdaa barbaarta iyo beeraha iyo howlaheeda iyo si fiican ayagana nooga saaciiday Ustaad Shucayb Cabdulatiif oo Sheekh Bashiir oo galabta halkaan ka maqan oo isagana shahaado sharaf aan halkaan ku guddoonsiin doono hadduu ilaahay yidhaahdo wixii intaas ka baxsan marka waxay noqon doonaan inaan website-kana la soconno hadduu ilaahay yidhaahdo documentary-ga halkaan aan ka shidi doono aan la soconno oo wixii aan soo qabanay aan ka arki doono aad iyo aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh